بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah ee walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah gurigan villada ah ee aad hadda u jeedaan waa guri villa ah si qurux badan u dhisan wejigiisa hore mutuneelkaas ayaa saaran sidaas ayuu u qurux badan yahay waa magaalada dhexdeeda soo dhawaada waxaan guda galayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ka hadlo ama ku bilaabo gurigan iibka ah ee villada ah waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada Kaaraanna waxa uu uga sii yaalaa xaafadda Wajeer waa guri villa ah dhisan laamiga suuqa Kaaraanna aad ayuu ugu dhow yahay laamiga waxaa ka xiga 4 boos oo kaliya waxa uu ka yahay booska shanaad 1 2 3 4 kaliya ayaa ka xigto marka waa dhul ku yaala meel fiican oo istiraatiiji ah dhul laami u dhow suuqana aan u dheereen waa dhul fiican booska meesha laga dhisay ama gurigan villada meesha ay ku taalo walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka oo ku fadhiyo dhulkaani waxaa cabirka uu yahay 12 lagu dhufta 12 ama doodisho dadka qaarkood sida u yaqaanaan waa u jeedaan waxaa ka dhisan guri villa ah oo dhammaystiran waa guri weyn hal qoys ku filan haddii aan ka hadlo qolalka uu ka kooban yahay gurigan villada ah walaalayaal waxa uu ka kooban yahay 5 qol iyo sidoo kale uu leeyahay 2 musqulood jiko barando iyo parking yar sida idin sheegay waa guri kaamil ah hal qoys si fiican ugu filan gudaha inaan galno ma suuro gelin insha Allah haddaad timaadaan waa laydin soo tusinayaa oo markii laydin soo tusinayo gurigan waa laydin furayaa haddii aan ka hadlo walaalayaal jidadka oo gurigani leeyahay sida muuqaalkaba hadda aad ka aragteen waxa uu gurigani leeyahay 2 jid waa fillo 2 jidla ah jidna wejigan hore ayuu ka maraa waa jidka uu gurigu ku jeedo dhinaca kalena waxaa ka mara jid kale haddii aan ka hadlo walaalayaal jihooyinka ay jidadka ka maraan ama gurigan villada ah jihooyinkiisa xagga jidadka waa fillo 2 jidle ah waqooyi ujeed iyo galbeed ujeed taasoo ah dhinaca la rabo in loo jeedi karo oo waqooyi ama galbeed albaabkiisa uu noqon karo ujeed iyo waqooyi ujeed jid weyn ayaa hormaray sidoo kale jidkan kalena dhinac ayuu ka maraa wadada hormarta ayaa weyn wadadan kale waxaa filayaa inay tahay wada 6 ah walaalayaal haddii aan ka hadlo sidoo kale xagga dukumiintiga gurigan villada ah waxa uu leeyahay dukumiinti nadiif ah oo dhammaystiran waa dukumiintiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre warqadaha oo dhan way u dhan yihiin
nootayo alle midaad jeceshahay ayaad ka wareegsan kartaa insha allahu tacaala oo lagu geenayaa dukumentiga si lagaaga xaqiijiyo sax ahaanshihiisa. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha gurigaani lagu rabo, waxaa lagu rabaa 75,000 doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah, macal dalaal ah iyo heshiis. Qiimaha waa qiimo macquul ah oo gurigaani waa u qalmaa lacagtaasi, maxaa yeele waa dhul dhisan oo guri fillo ah, qurux badan uu ka dhisan yahay, haddana meel fiican ku yaallo, jid fiican leh, laamigana u dhow. Sida idiin sheegay, laamiga waxa uu ka yahay booska 5aad, 4 boos keliya ayaa ka xigta. Sidoo kale qiimaha xaafadan lagado marka loo fiiriyo, qiimahani waa macquul. Filladan keliya ayaa waxaa laga yaabaa lacag 50,000 iyo meelahaas ah inay ku kacayso. haddana dhulka qiimihiisa bal ku sii dar. Marka waxaa dhihi karnaa waa qiimo aad iyo aad u macquul ah. Soo dhawaada walaalayaal, shirkadda Dallas Real Estate haddii aan nahay waxaa diyaar u nahay inaan idin soo tusino. Haddii aad ku qanacdaanna meesha jeceshiin idinkaga wareejino. Shirkadda astaanteeda waa hufnaanta iyo qancinta macaamiisha. Haddaa meelahan dhul ku leedahay xaafadan iyo dhammaan gobolka Banaadir degmooyinkiisa iyo hareerahaba, nala soo xiriir lambarada meesha ku qoran. Dhulkaaga waa lagu beec geenayaa. Haddii aad dhul u baahan tahay waa nala soo xiriiri kartaa. Waa lagu soo dhaweynayaa, si daacadnimo leh ayaa lagu adeegayaa. Haddii aan ka hadlo waxyaabaha uu ka anfici karo gurigan iibka ah, kow wuxuu ka anfici karaa deegaan. Waxaa la xaafad ka mid ah xaafadihii hore, xaafad camiran ah, marka deegaan si fiican ayuu ugu habboon yahay. Dhulkan wuxuu u dhexeeyaa dhowr laami, laamiga suuq Kaaraan, sidoo kale laamiga kale ee jeelada ka yimaada ee Liida gala, sidoo kale laamiga kale ee Mirnaayada asagana kuma dheera. Marka waa dhul meel istiraatiiji ah oo aad u camiran ku yaallo, xaafad la jecel yahay ku yaallo. Marka haddii aad jeceshahay inaad soo degtid, waa meel aad ku noolaan kartid, dhammaan adeegyada nolosha ee asaasiga ahna laga heli karo. Haddii ay noqoto waxbarasho, caafimaad, suuq hadday noqoto, gaadiid hadday noqoto, oo BLka waa heli kartaa noocyadooda kala duwan. Marka deegaan aad ayuu ugu habboon yahay. Sidoo kale waxa uu ku habboon yahay inaad dhulkaani gurigaani aad inta gadatid kireysatid. Waa guri dhismihiisa uu nadiif yahay oo wax loo celinayo ayna jirin, hore ka deg ah. Xaafadani kiradeeda waa ay fiican tahay. Marka dhanka maalgashigana habkaas ayuu ka anfici karaa inaad kira fiican aad ka heshid. Xitaa waxaa suuragal ah oo sidoo kale uu ku fiican yahay xagga lacag kororsiga ama bararsiga. Waxaana qiimihiisa ayaa macquul ah. Waa 2 jid leh, jid fiican haysta, laami u dhow. Gurigan qiimihiisa si u badan tahay inuu kor aado ayaa la rajeynaa. Dhulka noocan oo kale ah qiimahooda kor ayay sii aadaan. Marka soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta fursadan qaaliga ah ee idin soo gudbisa shirkadda Dallas Real Estate. Haddii aan si kooban idinkugu soo celiyo, waa guri fillo ah ku yaalla degmada Kaaraan, xaafadda Wajeer, laamiga suuq Kaaraan ka ah, booska 5aad. Cabirka uu yahay doodisho bardoodisho ee ka dhisan tahay 5 qol, 2 musqul iyo jiko. Dukumeenti Maxamed Saad Barre oo nadiif ah. Qiimaha lagu rabo 75,000 doolarka Mareykanka ah keliya, isku dhammaad ah, macal dalaal iyo heshiis. Soo dhawaada walaalayaal, waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. Waxaad si sharaf leh kaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha allahu tacaala. Sidoo kale Facebooka follow inaga soo dhaha. waa mahadsantihiin mar kale iyo mar kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.